ومدحجب اسكوي كوا قادمة وزير قادمة iyo wasiirka qaraxyada ku jira ila hada mustawa bal jooga ama amiirka de wasiir ma isticmaalane amiirka mutafajiraadka ama amiirka qaraxyada amiirka amniyaadka oo madax jabiski weey umadiba waxa la leeyahay waxaan ku leenaynaa dastuur bay dhigteen isagu laakiin muxuu sameeynaya dastuurna waa leeyahay qaldan diintiina been buu ka sheegaya Allahu akbarna waa ku daabaya dadkina waa dilaya wama dalika wuxuu rabaa i'tiraaf in loo helo anigu mujaahid baan ahay waan fiicanahay xaqaasna waan leeyahay qofkii aan dila laba mid weeye inuu yahay murtad dhintay oo gaal ah ama mid lagu qaldamay ilaahay baa janno geenahay anigana dambi kuma leeyahay waa ku qaldamay waxaas diin ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dajiyay dadka marka laga hadlayo amniga fikriga ah waxa la yiraahdaa wuxuu ku xiran yahay amniga luqawiga ah qofka sidii wax loogu sheego sixir waa ka daran yahay baa la yiri amniga fikirka ana wuxuu ku xiran yahay amniga qowmiga buu ku xiran yahay haddii inta been ay soo dhax gasho wax baa qaldamayo amniga fikirka dhankii diinta markuu ka qaldamo laga soo been sheego inta ka dambaysana waa qaldamaysa dadkii maxaa tusaale looga dhigay al-amniyat baa la yiri af Soomaali loogu sheegi maayo war amniyadu maxay yihiin waa kuwa gaadmada wax ku dila weey haddii inta loo yeero la yiraahdo adigu waxaad noqonaysaa dadka gaadmada dadka gaada oo luqluqyada u gala markuu horeyso qofku waa soo boodaya laakiin qofkii muddo la haynaya amniyad baa la liqsiinaya laga dhigaya wax diintii la dhalatay maxayna tahay waa nooc fulaynimo oo dadkii lagu baabiinayo maxaa la keenayaa mutafajiraad war mutafajiraadu muxuu ahaa ciidamada mutafajiraadka lagu leeyahay haddii loo sheego oo la yiraahdo markuu ugu horeyso waa kooxda isgubayso oo dadka gubayso oo naarta ku galaysa ta qofna aadi maayo laakiin mutafajiraad baa cunuga la liqsiinaya anigoo katiibada mutafajiraadka kamid ah maalin ugu wasiirada doorteen baa leeyahay waxa kamid aha wasiirka ikhtiyaalaadka waa madax jabiska weey kuwa gaadmada wasiirka gaadmada iyo wasiirka qaraxyada ku jira ila hada mustawa bal la jooga ama amiirka de wasiir ma isticmaalane amiirka mutafajiraadka ama amiirka qaraxyada amiirka amniyaadka oo madax jabiski weey waxa marka diin looga dhigaya ummadii istitlaaca waa kooxaha wax wiideeyo oo meelaha istaaga al-amiir waa horjooge waa dagaal ooge waxa lagu sheegayo dagaal ooge weey marka la u raadinin haddii loo sheego dadka oo sida ay tahay marka hore ay u garanayaan maxaa la leeyahay al-amaliyat al-inqimasiyya amaliyadka dhaxquusitaanka yani xabadii oo socota ayadoo lagu soo ridahaya bad galaysa waxa laga yaabaa inaan tacliimaadka la soo siirin marka la soo dirayo hadhow waxa loogu sii darayaa kinin in la siiyo xoogaa daroogaana loogu daro diin ilaahina la leeyahay waad ku dagaalamaysaa jannana waad gali doontaa xuural cayn xaqay kugu sugaysaa 70 qofka xaqay ka soo noqonaya jahannam ku galaya noocaas oo kale waxa soo dhanna asaaskeeda waa maxay ilaahay oo lagu been abuurtayo wuxuusan jihaad ka dhigin ummadii lagu yiri waa jihaad dad aan la dhihin hal lagu jihaadana la yiri waa lagu jihaadaya ma garanaysaa ummad aan waxba galabsanin dhiigoodii la xalaashado oo ay la gaadhay in dab la qabadsiiyo ubad iyo dumar iyo caruur iyo wax maartay meelaha marahaya oo aan waxba iska celin karin oo abriya ah oo cuzal ah oo aanan hubaysnayn oo xitaa kuwii la dagaalami lahaa aanan ahayn waxay ka duulayaan dastuurkii baa lagu dhaqmay diintii baa laga tagay baa laga duulayaa war dadka hiiraan jooga ee reebaadiyaha iyo dadka galguduud jooga ee reebaadiyaha iyo dadka buuraha galgala jooga ee reebaadiyaha dawladnimada aysan soo gaarin maxaa ka khusay wax dastuur ku dhaqma hadii dastuurka macalidin raac inuu gaalnimay lidin raaco waa kow maxaa ka khusay ilmaha yar yarka in dab lagu shido dastuur lagu dhaqmay dastuur hadii lagu dhaqmay in lagu gaaloobayo musallam baa dadka loo baabi'inaya maxay diinta looga been sheegaya waxaan ka wataa waxay tahay beenaha la sheego kuwa ugu daran ee waxa weeye in dadku ay ku baraarugaan loo baahan yahay ayay ka mid tahay meel walba ay halis ku yihiin ummaddu inay u baraarugsanaato oo ay u soo jeedo oo nafteeda ay difaacato aysan cid kale ugu danaynin waa daruuri jiddan dadyowga hadda kacay waxay ifafaaro wanaagsan u yihiin in la nabdi doono oo laga nasan doono ugu yaraan beentan ilaahay lagu abuuranayo nabiga sallallahu alayhi wasallam in loo kaalmeeyo marka wixii macruuf ah wixii tala ah wixii tabar ah ba ummadda looga baahan yahay qowlaysatada noocaas maafiyada ana ummadda laga jiro ikhwati alkiram waxaan ku soo gabagabaynaynaa beentu shan khisladood meesha taalo oo dib badan oo leedahay waliba midda alla lagu been abuurtay midda khalqiga loo sheego baan ku gabagabaynaynaa midda koowaad waa maxay
beentu waxay tilmaamaysaa oo sheegaysaa iimaan la'aan waxaa kaloo tilmaamaysaa qofka inay liidato muraaqabadiisa alle inuu arkayo daawanayo la socdo arrinta iyada yaqiintu u qaba inay aad u liidato qofka beenta sheego inuu yahay qof loogu yaboohay cadaab axwaasha inteeda qaalibka ah qofka beenta sheega inuu yahay qof diintiisii iyo adduunyadiisiba fasahaadinayo kharibahaya inta maxaa weheliya qofka beenta sheega inuu dhaxlayo dullinimo iyo khisa iyo khasaaro uu noloshiisa u dhaxlayo waxaa kaloo iyana jirta qofka beenta sheega inuu yahay mid looga caraysan yahay xagga alle xagga adoomadiisana qalbigooda caral loo gelinayo saadaradeed sifada noocaas oo aadka u liidata oo diin iyo dadnimo midna aanan ku fiicnayn in laga fogaado weeyo oo qofka muslimka qalbigiisa uu ka tahiraa